suuriya dal soo maray qarnigii ugu madoobaa taariikhdiisa burburka dagaalku uu ka siibay xididada nolosha isla markaana uu baabi'iyay shucuurtiisa dal ku waayay malaayiin qof kumanaan guri hanti aan cadadkeeda lahaynin iyo jiil dhan ayaan eegaynaa sanad kadib eryadii kaligii taliska waa sidee xaaladda waddankaasi tabinteenna tifaftir media ayaa dul maraysa sawirka dhabta ah ee soo dhowaada sanad kadib markii uu dhacay maamulka Bashar al-Assad muuqaalka Suuriya waxa uu wali xambaarsan yahay burbur xusuusta dagaal 14 sano socday iyo xulashooyin rajale kaliya Bashar iyo qoyskiisa wadanka kama tagine waxa sidoo kale meesha ka baxay Xisbul Ba'ath aan wax yar isla aqrino sadarra kamida buugga maamul ee xisbigaasi kadib burburkii boqortooyadii Cuthmaaniyiinta Suuriya waxay gashay waqti siyaasadeed oo gabi dhacleeya waxaana gudaha ka jiray mintidnimo afgambiyo iyo awood isku qabsi intaas oo dhan waxa ka faa'iideystay dhaqdhaqaaq cusub oo la oran jiray Xisbul Ba'ath oo markii hore ku dhisnaa fikrado midayn iyo cadaalad bulsho ah laakiin markii uu xukunka la wareegay 1963kii Ba'ath waxa uu bilaabay in uu noqdo mid awoodda isku kooba ciidanka siyaasadda waxbarashada dhammaan waxa gacanta ku dhigay koox gaara sanadkii 1970kii kadib afgambi dhexdooda ka dhacay Xaafid al-Assad ayaa xukunka qabsaday taas waxa ay ahayd bilowga nidaam adag oo muddo nus qarni ah maamuli doona wadanka waxa bilowday barakicin cabsigelin iyo baabi'in xorriyadeed doorasho xor ah wadanka kama dhicin sirdoonka waxa uu ahaa mid awood badan jirdil iyo xarumo qarsoodi ah oo dadka lagu ciqaabo ayuu wadanka yeeshay iyada oo lagu qasbay mucaaradka inay dalka isaga haajiraan ama ay xabsi mutaan intaas oo dhan waxay abuureysay cabsi ku faaftay dhammaan bulshada qoys walba waxa uu lahaa qof ka maqan qof xabsi ku xiran ama qof aan weligii soo laaban doonin oo la dilay sidoo kale waxa lagu xusuustaa taariikhda xukunka Ba'athka xasuuqii ka dhacay magaalada Hamaa halkaas oo lagu qiyaaso inay ku dhinteen 10 ilaa 40 kun oo qof hal toddobaad gudihiis dadka reer Suuriya maanta xataa jiilka cusub waxay wali maqlaan sheekooyinka magaalada Hamaa ee lagu gudbiyo jiilba jiilka ka dambeeya wax walba waxay ahaayeen fariin cad laakiin markii Bashar al-Assad uu xukunka la wareegay 2000 dadka badankood waxay rumaysnaayeen inuu isbedel keeni doono maadaama uu yahay dhakhtar dalka Ingiriiska wax ku soo bartay laakiin waxa dhacay waxay ahaayeen xorriyad yar ayaa la ballan qaaday balse wax yar kadib waa laga noqday hay-adihii amniga ee waabihiis dhisay ayaa wali hayay awoodda ugu badan qoysaska qaar waxay sii xukumi jireen ilaha dhaqaalaha warshadaha iyo ganacsiga laakiin musiibada ugu weyn waxa ay dhacday wixii ka dambeeyay 2011 markaas oo dadweyne ka carooday xisbiga talada haya iyo xukunka muddada dheer ee qoyska ay mudaharaadyo bilaabeen dibadbaxayaasha ayaa rasaas nool loo adeegsanayay kumanaan qof ayaa la xiray guryo ayaa la duqeeyay diyaarado ayaa magaalooyin dhan garaacay waxaana dagaalka 14 sano socday uu keenay in 90% dhaqaalaha wadanka uu burburo 70% adeegyada caafimaadka meesha ka baxaan 60% waxbarashada la waayo 7 milyan oo qof ay gudaha wadanka ku barakacaan iyada oo 6 milyan oo kalena ay qaxooti banaanka ku yihiin 100,000 oo dhintay iyo dhaawac aan tiro lahayn ayaa wehliyay markaas Xisbul Ba'athka waxa uu noqday astaan loo yaqaano nidaam xoog leh laakiin dhaliya bulsho tabar yar waa sida lagu yaqaano kalitaliska si kastaba ha ahaatee raadadkii dagaalka barakaca iyo cadaadiska siyaasadeed wali waxa ay u jiraan si qoto dheer shacabka soo laabanaya waxay ku nool yihiin dhismayaal gubtay adeegyo liita iyo nolol aad uga adag sidii ay maleynayeen markii lagu dhawaaqay ka xoroobida Bashar sida qoyska Maxamed Qilaawi ee deganaa koonfurta Dimashq gurigoodii ma laha daaqado ma laha biyo sidaas oo kalena Maxamed labadiisa xaas iyo shantiisa caruura waxa ay dhawaan dib uga soo laabteen Lubnaan halkaas oo lagu qasbay inay ka baxaan xiradii qaxootiga oo ay ku jireen Maxamed waxa uu leeyahay wixii aan maleynayay markii aan Lubnaan joogay kuma haysta Suuriya gurigii ay ku soo noqdeen ee Daraya waxa 2012 ilaa 2016 burburiyay duqeymo ay ciidamada dawladda u geysteen markii xaafadaas ay kacdoon kaga soo horjeeday nidaamka waxay dib u bilaabeen nolol ay ka sameynayaan qoryo ay ka gurtaan burburka si ay u shitaan iyaga oo gogosha dhulka ku fidsaday Maxamed waxa uu shaqo ka raadsadaa maalinba meel balse waxa uu qirayaa in noloshu tahay marba iyo milayga xiga mid aan la hubin 1.2 milyan oo Suuriyaan ah ayaa dib ugu laabtay hal sano gudihiis wadanka waa dadkii ka cararay dagaal soo bilowday 2011kii
markii jawaabtii xoogga lahayd ee xukuumaddii Asad ay mudaharaadyo caruur ku bilaabeen isu bedeleen kacdoon dhiig badan ku daatay dadka intiisa badan waxa ay dib ugu soo laabanayaan deegaanada la xoreeyay balse xoreyn macnaheedu ma aha nolol fudud guryaha oo burburay shaqo la'aan sicir barar nidaamka caafimaadka oo burbursan iyo adeeg biyo iyo koronto oo aan joogto ahayn ayaa ka mid ah waxyaabaha ay la kulmayaan dadka soo guryo noqday Ahmed Ata Alawi oo isna ka soo noqday Lubnaan wuxuu sheegay markii aan soo laabanay waxaan la kulannay guri aan la degi karin wax walba waa la qarxiyay laba qol oo kaliya ayaan rabnay inaan hagaajino laakiin qiimaha ayaa noqday 150 milyan oo lacagta Syrian pound ka dagaalkii sokeeye ee socda 14 sano waxa uu salfaday in ka badan nus milyan qof waxa uu burburiyay kaabayaal isbitaallo iskuulo suuqyo iyo malaayiin qoys oo guryo waayay daraya oo 4 sano gacanta ugu jirtay kacdoonka wali waxa ay ku tusinaysaa sida dagaalku u jaray halbowlaha nolosha shacabka sawir bari malaayiin ku kacayay oo isu ragay bir gubatay ayaa marqaati u ah dagaalkii dhacay dadka soo laabanaya waxa ay wataan rajadii ugu dambeysay ee ku saabsan nolol ka duwan tii ay ka carareen inkasta oo uu burbur ku weyn yahay qaar badan oo reer Dimashq ah waxa ay sheegeen in adeegyada qaar ay si tartiib ah u soo hagaagayaan isbitaalka dhexe ee magaalada shaqaalaha qolka meydadka ayaa sheegaya in hadda qaboojiyuhu shaqeynayo halka sanado badan meydadku dibadda tubnaan jireen maadaama aysan jirin qaboojiye shaqeynayay xitaa qaybta gurmadka degdega ah oo wali ciriiri ah shaashado iyo qalab ayaa dib loo dayactiray waxaana jira agab caafimaad oo aan hore u jirin xilliyadii hore qofka dhaawaca ah waxa lagu qasbi jiray inuu isbitaalka ka baxo oo uu isaga iibsado xataa jeermis dilaha maantana waxaan ka bilownay meel eber ah laakiin si tartiib ah ayaan u dhisnay adeeg dadka uga roon sidii hore ayuu yiri maamulaha isbitaalka dhaqaalaha Suuriya oo burburay sanadihii dagaalka wuxuu keenay shaqo la'aan iyo sicir barar inkasta oo qiimaha dollarka uu ka soo dhacay heerkii ugu xumaa oo halkii dollar ka yimid 22,000 oo lacagta Syrian pound ka ah iyada oo lagu sarifayo haatan qiyaastii 12,000 haddana dadka siyaasadda iyo suuqyada ku shaqada leh waxay sheegayaan in horumarku yahay mid aad gaabis u ah waxa jira qorshe lagu doonayo in lagu hagaajiyo lacagta Suuriya laakiin dhaqaaleyahana badan ayaa shaki ka qaba in arrintaasi xal noqon karto suuqa Dimashq qiimaha qudaarta iyo miruhu waxa u dhaxeeya 5,000 ilaa 10,000 oo Syrian pound halkii kiilo badeecado badan ayaa tayo hoose ah laakiin dadka qaar waxay sheegeen in ugu yaraan cunto badan ay suuqa ku jirto boorarka waxay dirayaan fariimo midnimo waxyaabaha ku xardhanna waxa kamid ah kelimada af Ingiriis ku qoran oo la macno ah qaran mid ah shacab mid ah taariikh ayaa la qorayaa heshiis ayaana la cusboonaysiinaya caruur ayaa la geeyay masaajidka Umayyad mid kamid ah goobaha ugu cajiibsan Dimashq si ay u dabaaldegaan Riixana Atiya oo ah macallimad fasalka 6 dhigta ayaa waxay sheegtay in dadka ay ku jireen 14 sano cabsi iyo dulmi maantana ay xorriyad dalka oo dhan ka jirto inkasta oo dagaalku istaagay shacabku wali waxa ay qabaan cabsi iyo shaki dadka badankood waxay ka cabanayaan shaqo la'aan guryo la'aan dhaqaale liita qaybo kamid ah dawladda cusub oo aan kalsooni buuxda lagu qabin iyo arrimo ay ka dhaxleen colaadihii muddada dheera waxa wadooyinka ku sugan ciidamada ammaanka ee cusub kuwaas oo marar badan joojinaya warbaahinta ama dadka sawirada qaadaya goobaha qaar waxa ku sugan ciidamo dharcad ah oo ku wargeliya xogaga amniga marka ay arkaan qalab wax lagu duuba taasi waxay xusuusinaysaa nidaamkii sirdoon ee xirxirnaanta lagu yaqaanay waqtigii Asad aabihii iyo guud ahaan xisbul bacthiga carruurta calanka sita ee joogta afaafka masjidka Umayyad waxay muujinayaan rajo cusub rajada dal doonaya inuu ka kabto culaysadii dagaalka xorriyadu waa waxa ugu qaalisan aadanaha ayay leedahay macallimad Riixana waa hadalka ay maanta ku celcelinayaan malaayiin Suuriyaan ah kuwaas oo nolol hor leh uga soo baxaya qiiqii dagaalka shacabku waxay ku rajo weyn yihiin adeegyada oo soo hagaagaya musuqmaasuqa oo yaraaday iyo nabadii oo soo noqonaysa laakiin su'aal ayaa wali taagan Suuriya ma heli doontaa dib u dhalasho dhab ah mise burburka dagaalkii 14 sano socday ayaa muddo dheer sii jiri doona jawaabta su'aashaas waayaha aan u dayno waa Abubakar Maxamed oo idin leh la socodkiina ayaad ku mahadsantihiin ha moogaanina inaad nagu soo biirtaan talana ku biirisaan Tifaftir Media inta aan dib u kulmayno nabad iyo warsan